لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وزير كحجينك iyo culimada sharafta leh agaasimaha dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ramadaan mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr, taqabbal Allahu minna wa minkum saalih al-a'maal, jazaakum Allahu khayr. Sidaad la socotiin, adduunka waxaa weli ku sii faafayo oo halis ba'an ku hayo gaar ahaan waddankeena Soomaaliya cudurkan COVID-19 coronavirus loo yaqaano. Maalinba maalinta ka sii dambayso dad aan jecel nahay ayuu ku dhacaa, dad aan saaxiibo la nahay ayuu ku dhacaa, dad waalidiinteena ayuu ku dhacaa, walaalaheena ayuu ku dhacaa, qaarkoodna dad aan jecel nahay ayaa u dhinta. Marka annaga waxaana laga rabaa inaan ka digtoonaano, ka taxadarno, iskana ilaalino, una hoggaansano talooyinka ka soo baxaya khubarada caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka. Mar walba waxaa waaye nafta bini'aadanka in la badbaadiyo ayaa awlawiyada koowaad iska leh. Mar walba qofka bini'aadanka ah waxaa waaye inuu taxadaro waaye, inkastoo qadarta ilaahay ay mar walba ay jirto, haddana waxaa waaye qofka inuu halista u bareero maaha. culimmada aadaan ugu mahad celinayaa inay ka soo ajiibeen fariintaa u dirnay oo aan dhahnay noo imaada, arrintan bandoogana aan ka hadalno, ka bilaabanayso halka saac fiidnimo sida loo yaqaan halka saac fiidnimo, kuna eg subaxii 11 saac ama 5 subaxnimo ku eg, in loo hoggaansamo, dadkana guryahooda ay ku dukadaan inta bandooga uu jiro. culimmada isla wada qaadanay, warmutiyeedkeenna saasuu ahaa, culimmadana waa nagu taageereen. aada ugu mahad celinayaa, jazaakum Allahu khayr. ganacsatada Soomaaliyeed meel walbo ay joogaan waxaan faraynaa inay u turaan dadka masaakiinta ah xilliga lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, una raqiisiyaan badeecooyinka ay gadayaan. ugu dambeyn, ummadda Soomaaliyeed meel walbo ay joogaan waxaan ilaahay ugu baryayaa inuu ka dulqaado dhibaatada cudurkan coronaviruska loo yaqaano oo halista badan ku hayo adduunka oo dhan, guud ahaan dalka meel walba dadka ay joogaan. marka jazaakum Allahu khayr, aada u mahadsantihiin. waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay raado dadka shacabka inay u hoggaansami doonaan. mar walba waxaa wanaagsan qofka inuu naftiisa halis uusan gelinin, gurigiisa uu joogo, salaadahana gurigiisa uu ku ogo. mar walba saasaa wanaagsan. cudurkan halis waaye. awalka hore shaki hadduu noogu jira, maanta wuxuu marayaa 300 iyo qof ayuu saameeyey. dadka ku dhintana tiradooda aaday u badan tahay. maalinta ka sii dambaysa waxaa waaye dad badanuu sii galaabsanaya. marka waxaa waaye taas taxadarkeeda hala muujiyo, ilaahna ummaddeena ha hareer marsiiyo. jazaakum Allahu khayr, waa mahadsantihiin.